بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إلهي سبحانه وتعالى إن بدن وحكاها الله بر الوالدين. عبادة إلهي سبحانه وتعالى وحكو حري بر الوالدين. إلهي سبحانه وتعالى آيات بدن أيوغاها الله بر الوالدين. محاضرين ما أنت حكوصة بر الوالدين. بارنو سالو نقضا dadka say imoodeen inta badan ma ahan ilaahay wuxuu leeyahay wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana aayadka ilaahay wuxuu leeyahay wa wasina al insana bi walidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahn wa garanaysan waalidku aad buu mataqaanay uu fadligiisa u badan yahay ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu cibaadadiisii iyo shirkigii iyo ka hadlay ilaahay inuu shirkigii ka hadlay kadib muxuu ku xariiriyay bir waalideenka fadiila ilayhiin iyo maziya ilayhiin way dadka muslimiinta markay inay ogaadaan bir waalideenka iyo waalidka xaq ku leeyahay waa inay ogaadaan uqul waalideenka waa mid ugu daran nabi ibraahim ayaa tusaale noogu filan nabi ismaaciil ayaa tusaale noogu filan nabi ibraahim alayhi salaam aabihiis buu damindhaaf u weydiiyay ilaa laga ogolaan waayay nabi ismaaciil aabihii buu warkiisa yeelay inuu gowraco ku qurbaan ugu dhawaado nabi yuusuf aabihi yaqoob baari u ahaa nabi maxamed alayhi salaatu labadiis waalid buu duceyn jiray waalidka markii aad nooshahayna ay nool yihiinna ducay waxay kaga baahan yihiin mataqaanay inaad u ihsaan fasho wanaag u sameeyso markay dhintaan inaad xoolo u bixiso oo mataqaanay aad u duceyso oo markasta tukata u duceyso ay kaga baahan yihiin xajka hadii lagu leeyahay xajkana ka soo guday u baahan yihiin waalidka xaqiisa xaq la koobi kara ma ahan balse inaan la koobi karin nabi alayhi salaatu wasalaam waxba mu ka hadlay xadiiska nabiga alayhi salaatu wasalaam abdullah ibn mas'uud xadiiskiisa daa soo qaadano abdullah ibn mas'uud baa nabiga u yimid inta dad ay mataqaanayaan xaq adduunka joogo waxa ugu xaqna badan buu yiri macnaha inta amal la qabto keeba ugu fadli badan ayuu weydiiyay nabiga muxuu ugu jawaabay as-salaatu ala waqtiha thumma ayun بر الوالدين بوير حديثي كلو عائشة دان سو قادنا نبي النبي يقول عليه الصلاة والسلام كاس وحو ويدي يا أنت إن النول الصحابة ده يا يقول وحسن فلا يا أد أولو يا مثلا وحسن فلا مركز وحو كوي النبي عليه الصلاة أمك هو يدا يا كحو جبي ثم من بوير نبي وحير أمك هو يدا مرصد حد ويا كحو هو أمك هو يا النبي عليه الصلاة والسلام مر أفراد بوريا كحيو أبوك أباها بير ساس درتيد ما أها النبي مكو اللي بيقول لي أباها قدام مرسينايو هو ينا صدح درجة أسرة مرينايو حق إذا أيها فربضا أيضا أيها سيال عاش ساعة وكو قاضي أيضا أيها دارك كو سدي لبستنا أيها ناس كده كنو جينيسي انت سيحناني كو سودي حق مزيد كو يراتو حق واسدا إلوي والدك مركه haddaad xeeradaada misaga ku wado ama dhakal caana san aad wado oo maghribka dul istaagto ilaa waa ka bariya dul tagnaato xaq waalidka ma gudanin dad waxay u maleeyaan haday dibadaha tagaan ama dalka ay joogaan waalidka cunno la siiyay cabitaan la siiyay iyo dhar loo gada iyo mataqaanay guri la dajiyay inay baarnimo tahay bas wartaas kaliix baarnimo ma waalidka markaas la joogto waa inaad istaagnayn hadii hoos fataha fadhiya haday ku hor socdaan waa inaad mataqaanay aad ka dambayso way النبي عليه الصلاة والسلام نبأ يمت من الشيب أو صعود وحديث كلا مركز وحي ونك واقع ما معك يا ونك كلا صعود كذي أبي أباه هرتيها صعب بالير نك حلويري أباه هرتيسه ولقاها صعب بالير هرتيسنا فريسان بوير مجيء سنة هو يريم بير عليه الصلاة والسلام مجيء سنة هو يري أبا هبلو هديهم بير أبا بس كو والوالدك arrinkiisa arrin weyn weeyo laana ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu la xiriiriyay cibaadadiisii asaga la caabudu lahaa salaad loo tukan lahaa soomkii loo soomi lahaa buu la xiriiriyay nabi alayhi salaatu wasalaam walaalayaal marka bir waalideenku waa arrin aad u weyn ha u qaadanina inay ma taqaanaaye xogaa yar mushaar ahod dibadda ka soo dirtay in waalidka uu barnaamijkiisa u qaadan waalidka handaad ma taqaanaaye dhowr sano aad moogaato handaad bil moogaato waa inaad u tagto waalidka waa inaad madax u tuujiso وانا الوها أتوجسه وانا بيها أكل ليسه أبا هريرة هذا سوق هذا هو يدي سوق والبكسو كله يجري قصوا له يجري السلام عليكم يا أمه
ma fahanteen walaal marka waxaa weeyo waalidka xaqiisa aad buu u weyn yahay wax hal fadhi lagu soo koobi karana ma ahan dambaalada ma noqon doona insha Allah dula hidmo intaan ayaan ku soo koobinaa billahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh